شاء الله تعالى qisaska ay ku toobad keeneen culimada waaweyn ee caalamka islaamka laga yaqaan taariikhda islaamka lagu bartay waxaan soo hormarinaynaa qisada al-Fudayl ibn Iyad nin la oran jiray Fudayl ibn Iyad wuxuu ahaa dadka wanaagsan buu kamid ahaa magaalada Samarqand ayuu ku dhashay gobol iyo maarta wuxuu ku soo barbaaray Khuraasaan wuxuu degay magaalada Makka iyada ayuuna ku dhintay markii dambe Fudayl ibn Iyad markiisii hore wuxuu ahaa rajul dadka cabsi geliya oo dadka qutaacu turuqda oo wadooyinka umada u fadhiista oo baarta oo dhul jiifka la yiraahdo oo meelaha dadka ku baarto waxay wataan ka qaata ayuu ahaa aadna waa looga cabsan jiray ibn Asakir ayaa wuxuu leeyahay sababta uu Fudayl ku toobad keenay wuxuu ahaa isagoo oo meesha bahgooyada ah cidlada joogi jiray dadkana cabsi gelin jiray ayaa waxa dhacay ninka sababtaas waxay ahayd gabar jaariyad ah ayuu maaragtay ninkaasi caashiqay uu jeclaa gabadh buu jeclaaday maalin maalmaha kamida ayuu marka habeen iyadoo gabadhu guriga ku jirta buu darbiga soo fantay hadaween iska dhul jiif oo garanaysa darbiga intuu soo fantay baa wuxuu rabay gabadha inuu halka uga dhaco uu guriga uga soo dhaco isagoo oo halkii fananayo darbigii saaran ayaa wuxuu maqlay qiraa'ah aayad la aqrinayo oo ah aayada Ilaahi subhanahu wa ta'ala fi surati al-Hadid aayada 16 alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq aayadaas oo macnaheedu sheegayo alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wardadka ahlu iimaanka ah muslimiinta ee muuminiinta ah soo lama gaarin xilligii ay Allah u toobad keeni lahaayeen subhana xilligii ay u joogsan lahaayeen Ilaahay waxa soo dajiyay subhanahu wa ta'ala aayadii markuu maqlay ayuu ninkii isla markiiba waa istaagay waa soo laabtay meel yar oo iska jajab ah oo maaragtay qashin qub abu iska galay halkii buu ku jiray habeenkii uu joogay kadibna waxay sheegayaan qisasku in Fudayl Ilaahi subhanahu wa ta'ala ba sababti hidaayadiisa haduu u soo dajiyo aayadii uu maqlay ilan Allah wuxuu leeyahay innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Fudayl waa toobad keenay wuxuuna la darsay xaramka ayuu iska yimid ilaa uu ka dhinto qoliyaha qaarkood waxay leeyihiin sababtu waxay ahayd ibn Asakir sidoo kale soo guurin isagoo dadkii aad u cabsi gelinaya niman baa soo maray isagoo duurka ku jira ayaa waxay maqleen iyagoo dhahaya war caawo in rara oo in socodsiya Fudayl baa meelahan fadhiye iyeenan maartay in qabsanayso inaga qaadanina kadib baa ninkaas wuxuu yiri ma umada guuraynaysan aniga ayay iga baqayaan aniguna iyaga ayaan cabsi gelinayaa aayada markuu maqlayna wuu qayliyay Ilaahi subhanahu wa ta'ala buu u toobad keenay Fudayl ibn Iyad waxa lagu tilmaamaa sida Ibrahim ibn al-Ash'ath uu leeyahay wuxuu leeyahay ma ra'aytu ahadan kana khawfu Allah fi sadrihi a'zamu min al-Fudayl nin Fudayl ka cabsi badan ma ana arkin buu leeyahay wuxuu ahaa markuu Allah xuso subhanahu wa ta'ala Ilaahi marka la xuso waa istaagi jiray markii maartay la sheego waa qushuuci jiray quraanka hadii la aqriyo way ka muuqan jirtay ee waa laga arki jiray indhihiisa ayaa ilmeyn jiray waa ooyi jiray nin noocaas ayuu ahaa aayadaas markuu maqlay alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah waxa la yiraahdaa alam ya'ni waa mushtaqa min al-an hadda ayaa laga soo qaatay macnuhuna waxa weeye الآن توبوا ورحد الله توبت كنا سبحانه الآن توبوا هذه اللحظة الله توبت كنا سبحانه وتعالى ذكرك إلهي الله لابته خشوع له الله لابته إلهي سبحانه وتعالى استغفار أيو أقول لابتي سيداسنا فضيل ابن عياض يكتوبت كنا أيها الأحبة قصة اللباد يدنا toobadkeenka aayada quraanka abana calaaqa la saddex nin oo dadkii waaweynaa culimada kamida saddexdaba qisada ay ku toobad keeneen aayadaas fi suurati al-Hadid ee lambarkeedu yahay 16
ayay soo wada gelayaan. waxaana weeyaan qisadaas waa towbatu Maalik ibnu Dinaar ninka la yidhaha. Maalik ibnu Dinaar isagana waxaa la yidhaha maalin maalmaha ka mid a isagoo ardaydiisii iyo tulaabtiisii dhinacyada ay ka fadhiyaan ayaa wuxuu yidhi maanta sheekhiina hortiina fadhiyay wax badan buu cilmi idin baray oo idiin sheekeeyey laakiin maanta isaga ayaan idinka sheekaynaya bimacnaa aniga ayaa idiin sheekayn buu. Maalik ibnu Dinaar waxaa la yidhaahdaa kaana maa kaana min almacaasi wadunuub, isaguna wuxuu soo maray macaasi badan iyo dembiye badan buu soo maray dembiyadaas oo runtii aad iyo aad isaga tiro badnaa. maalin maalmaha ka mid a waxaa ka mid ah marka isagana qisadiisa inuu gabadh soo iibsaday jaariyad ah, ilaan waagii hore addoommada waa la gadan jiray, isagoo qisada ku qasabtayna ay ahayd dunuubtiisa iyo xumaantiisa darteed wax gabarh xor ah u guuriya inuu waayey. sidaas darteed baa wuxuu iska soo gatay gabadh addoon ah. gabadhii ilaahay subxaanahu wa tacaala jaariya muslima mu'mina ayay ahayd, gabadh muslimada bay ahayd, wuu xoreeyey, kadibna xornimadeedii buu meherkeedii uga dhigay, kadibna wuu guursaday, kadibna waxay noqotay gabadh aad iyo aad u wanaagsan ayay noqotay, caarifatan lirabbiha gabadh allaheeda taqaana ayay noqotay, mutiicatan lisawjiha gabadh zawjkeedana ka dambaysa ayay noqotay. wuxuu leeyahay waxaan ku arki jiray gabadha mar walba khayr badan ayaa iiga muuqday. maalin maalmaha ka mid a gabadhiina waxaa dhashay inay ilmo ilaahay subxaanahu wa tacaala gabarh yar buu alle ka siiyey subxaanahu wa tacaala. gabadhii yarayd ayaa wuxuu yidhi aad u ciyaarsiin jiray, ila qosli jirtay, aan maaragtay annaga dhan ku faraxnay, guriga iyaga qurxisay, markaan guriga bannaanka ka imaada i qaabili jirtay, ii imaan jirtay. maalin maalmaha ka mida iyadoo sidaa u ciyaaraysa ayay gabadhii unbaan arkay buu ihi gabadhii oo meyd ah oo naftu ay ka baxday. faadad ruuxuhaa kadibna waan fiiriyey qalbigayga waxaad moodaa inuu soo fuqo oo deeq ilmo yar ood ciyaarsiinaysa ood jeclayd oo meyda markaad aragto yacnii xusni iyo murug yaa ilaahay wuxuu ku asiibay wax aan la sheegi karaynin. kadibna manaamka ayaa waxaan ku arkay buu ihi hurdadii ayaa waxaan ku riyooday iyada oo qiyaamadiiba ay timid, dhulkii maaragtay kaana alarda dhulkuna aad mooddo inuu kala dildilaacayo ayaan arkay oo khalaa'iqdii iyo ummaddiina ay soo baxayso, kadib la wada yaacayo, aniguna aan ordayo. haddiiba aan gadaal fiiriyey waxaan arkay olol iyo dab isoo daba cararaya ayaan arkay. haddana haddaan mar labaad fiiriyey waxaan arkay thucbaan iyo mas weyn oo isoo daba ordaya ayaan arkay. haddii aan sii socday xaggayga hore waxaa ka muuqda buur dheer iyo maaragtay xagga horena uga jeedaa. buurtii haddii aan haddana fiiriyey waxaan arkay gabdho yaryar oo qaylinaya oo ku dhawaaqaya yaa faatima. gabadhiisa ayaa la odhan jiray faatima, faatimay aabbahaa gaar, aabbahaa gaar. markaasaa waxaan maqlay qaylo ee gabadh dhawaaqaysa. haddaan xaggeeda buurta ka fiiriyeyna waa gabadhaydii faatima ayaa waa hurdo waxa waa manaamkii iyo hurdadii ayuu ku riyoonayaa. haddii aan fiiriye waa gabadhaydii. kadibna gabadhii markii u ishaartay xaggayga ayay ii soo ishaartay buu yidhi oy tidhi xaggan u soo soco. kadibna maskii oo daba ordayana joog bay ku tiri oo sidaasoo kale bay ugu ishaartay. maskii waa istaagay, isaguna buurtii buu soo taagay, gacanta ayaa u taagtay, sidii buu ku soo koray. yaa abataah ayay tidhi aabbo xaggan soo aad. markay kelimadaa ku dhawaaqdayna wuxuu maqlay iyadoo aqrinaysa alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazala min alxaq. waa isla aayaddii fudayl ibnu ciyaad aan ku soo marnay ayuu isaguna maqlay gabadhii oo aqrinaysa. ayib markii aan maqlay watukariruhaa way ku celcelinaysaa gabadhu. waan soo baraarugay buuhi hurdadii baan ka soo baraarugay. waxaad mooddaa markaan soo baraarugayn soo toosay sawdkii gabadha iyo inaan maqlayo codkeedii. waxaan maqlay aadaanulfajri salaadii subax oo qof u aadaamayo uu leeyahay xaya cala asalaax, xaya cala alfalaax isagoo dhahaya ayaan maqlay. kadib ayaan soo booday, ilaahay baan subxaana wa tacaala istikfaar u sameeyey, allah baan u soo toobad keenay, rabbi baan ku xamdiyey, ii soo celiyey xayaatadaydii mar labaad. kadib waan qabaystay buu yidhi, waan weysaystay, masaajidka ayaan aaday. masaajidka ma taqaanaa qofka tujinaya alimaamu shaafici
ayaaba dadkii tujinayoon meesha ugu tegay buuhi allahu akbar salaadii buu tujinaya imaamu shaafici muxuu aqrinayaa salaada dadka ku tujinaya ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آيات داسو أقرنا يا الإمام الشافعي مركي أن صوق على صفقة qalbigaygii wuxuu yidhi waxaad mooddaa inuuba soo baxay oo bannaanka u soo baxay indhahaygiina ilin ayay isu gediyeen waxaanan u qaatay inaan ahay qofka loola jeedo aayaddanba inuu isaga yahay baan u arkay qofka lagula khitaabaya inaan aniga ahay allah subxaanahu wa tacaala baan ka xishooday salaadu markay dhammaatay ayuu imaamu shaafici soo jeedsaday waad artay imaamku markuu dadka tujiyo uu soo jeedsado xagga dadweynaha ayuu u soo jeedsadaa kadibna imaamu shaafici wuxuu gudagalay inuu aayaddii fasiro aayaddii buu fasiray wuxuu yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah yaa imaamu shaafici wuxuu yidhi alam ya'ni hiya mushtaqah kelimadan waxaa laga soo qaatay buuhi min alaana hadda now right now hadda toobadkeen kaannahu yaquulu waysagoo leh alaana tuubuu qabla an yafuuta alwaqt war hadda intuuna waqtigu ku dhaafin toobadkeen haadihi laxda waa in marka wuxuu ihi waan nidaamooday waan ka shalaayay khushuucdii iyo dikrigii ayaa i qabatay ilaahay baan u toobad keenay istikfaar baan la imid raxmaddii ilaahay baa igu soo degtay allihii aan macsiyadii iyo xumaantii hore igu dilin rabbi baan u toobad keenay xaaskaygii baan ku noqday waxaan ku idhi buuhi haya binaa nashudu arixaala limadiinati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam ina keen xaaskiisii buu ku leeyahay waynu guuraynaa magaaladii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam baynu aadaynaa ilaahay baa i waafajiyey subxaana rabbina wuxuu iigu bedelay gabadhaydii iga dhimatay buu igu bedelay caruur badan buu igu bedelay oo caruurtaasi waa max cawadanii abnaa'a almuslimiin yashuduuna ilaya alrixaala min mashaariqi alardi wa magaaribiha adduunka oo dhan dhallinyaradii joogtay iyo ardaydii iyo maaragtay xertii ayaaba meel walba ka timid oo isaga u soo wada imaanaysa iyagoo cilmiga dalbaya ilaahay baan ku xamdiyey subxaanahu wa tacaala sidaasaana wuxuu ku noqday ninkii ninkaa sheekha oo cilmiga laga qaata ayuu noqday ayuhalaxiba qisada saddexaad oo isla aayaddan ah waxay ugu bixiyey inaan qisaskan isku ururiyo waxa weeye isla aayaddan alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah qisada saddexaadna waa ninkii la odhan jiray towbatu cabdullaahi ibnu lmubaarak almujaahid waalcaalim alkabiir ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu mubaarak oo isaguna ahaa nin dhashay 118 taariikhda hijriga markay ahayd dhintayna 181 taariikhda hijriga ah ninkaasi taariikhdiisu waxay sanadna wuu xajin jiray sanadna ghaswiga iyo wuxuu aadi jiray umuuraha kale ee wanaagga ayuu u bixi jiray ninkaasi wuxuu ku barbaaray guri cabsi iyo warac iyo xalaal miirasho ayuu ku barbaaray aabbihii baa wuxuu ka shaqayn jiray beer buu ka shaqayn jiray aabbihii waxaana la yidhaha waracnimadiisa iyo xalaal miirashadiisa dhab darteed aabbihii ma kala aqoonin miraha kuwa kharaar iyo kuwa macaan ma kala garan jirin waxaana kuu muujinaysa qisada dhacday darteed aabbihii wuxuu guursaday gabar iyaduna daatu diinin wa khuluqin gabadh akhlaaq iyo diin badan buu guursaday waana ninka beerta iskale gabadhiisii aharka raadka iyo dadkaa fiicanna waxay ka muuqatay cabdullaahi ibnu mubaarak ilan wa kaana abuuhumaa saalixan aharkaasi waladka ayuu ka muuqanayaa qisada uu ku guursaday waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa nin ka shaqeeya beertana nin qaadi ah baa iska lahaa qaadiga magaciisa waxaa la jiray nuux ibnu maryam baa la odhan jiray wuxuuna lahaa gabadh aada u qurux badan oo ahludiin ah buu lahaa akhlaaq badan ragoo dhanna ay soo tamadiyeen oy raadin jireen oy soo dalbeen laakiin loo diiday kadibna maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkii qaadiga ahaa beerta yaa ka shaqeeya cabdullaahi ibnu mubaarak aabbihii baa ka shaqeeya markaasaa intuu u yimid ayaa wuxuu yidhi beerta bal waxaad iiga soo goysaa midho iiga soo go midhihii wuxuu u keenay midho kharaar buu u keenay
wuxuu yidhi miyaadan wiilkayow maandhow ma kala taqaanid miyaa midhaha macaan iyo midhaha kharaar ma kala garanaysid miyaa buuri hadal cajab badan buu ku yidhi waxaad tiri buuri beerta ilaali laakiin midhaha cun ma aada i oranin sidaas darteed ma kala garan karo waman laa ya'kul laa yacrif buuri qofka aan cuninna ma garan karo midhuhu inay macaan yihiin iyo in kale qaadigii ninkan hadalkiisibuu aad ula yaabay ilaahay siduu u xifdiyey subxaanahu wa tacaala kadibna gabadhiisii ayuu u guuriyey cabdullaahi bnu lmubaarak alcaalim alkabiir ood garanaysaan boyna u dhashay sidaasayna mayrtay iyuu ahaa qisada uu ku guursaday aabbihii hooyadii haddaba cabdullaahi bnu mubaarak wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah dhalinyartana waa iska taqaanaayo waxyaabaha adduunka iyo hawada iyo macaasida iyo howlo badan bay leeyihiin raqabaadkooda midba waxbuu xiiseeyaa cabdullaahi bnu mubaarak waxyaabaha uu aadka u xiiseyn jiray waxay ahayd muusikada muusikada wuxuu iska wadan jiray maaragtay durbaankii iyo alaabtii wax lagu tumi jiray oo lagu garaaci jiray buu iska lahay oo hawshaasuu ku dheerayn jiray weliba aadna wuu u yaqiinay baa la yidhaahdaa isagaa marka ka warramaya naftiisa cabdullahi bn mubaarak wuxuu yihi ma kuntu yowman fii bustaanin maalin maalmaha ka mida baan beerta joogay beer anigoo nin dhalinyaro ah oo jamaaco aniga ila da-a la jooga xilliguna xilli aad maarata geeduhu markay caleenta leeyihiin oo ay dhalaan ay tahay oo fawaakidii oo dhan ay dhaleen kadibna halkaasaanu iskaga cunaynay cabitaankaanu ku jirnay maxaana ahaa qof aad u jecel inuu garaaco maarata waxyaabaha muusikada inaan garaacoon tunno ayaan jeclaa buu leeyahay habeen marka waxoogaa yar baan seexday buu yihi maalintii geedka hoostiisa kadibna waxaan arkay laan markuu indhaha saa u soo gala gooyey laan saa u dhaqdhaqaaqaysa oo intay beertii maaragtay midhihii ay leedahay kadib intaan markaan saa u arkay soo qaatay durbaankaygii ayaan waxaan rabaa buuhi inaan tumo oon halkaa kaga dhawaajiyo kadib baa waxaan maqlay buu ihi subxaana allah cuudkii ama laantii wixii uu garaacayey oo ay ka baxayso aad moodid aayad qur'aan oo la aqrinayo alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllaahi wma nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamad faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun waa isla aayaddii waa aayaddii sababteeda fudayl ibnu ciyaad uu ku toobad keenay waa aayaddii sababteeda maalig ibnu dinaar uu ku toobad keenay waa aayadda maantana haysata cabdullaahi bnu lmubaarak ayib wuxuu yihi markaan dhegaystay aayaddii ayaa subxaana allah waan aamusay buu ihi isla markiiba waan booday fadarabtu bilcuudi alarda fakasartuh isla markaa intuu qaatay durbaankiiyo wixii la tumaayey oon soo qaaday baan dhulka ku dhuftay buu yihi waan kala jebiyey kadibna wax alla wixii qashin ahaay ood garanayso dee ka ag dhowaayo oo dhan oo keenay inay maaragtay macaasida iyo xumaantana waan wada ururiyo waan tuuray kadibna jaaءa tawfiiqu min cindi اllaahi subxaanaه wa tacaala allah agtiisa ayaa waxaa ka yimid in ilaahay i waafajiyey baan dareemay kadibna ilaahay baa subxaanaه wa taala toobad keenkiisa u soo dejiyay raggan rag isku da-a bay ahaayeen fudayl ibnu ciyaad iyo isku wada wakti kadib waa ninkii warqadda u jiray fudayl ibnu ciyaad oo xaramka fadhiya oo halkaa dadka wax ku barayo iska fadhiya isaguna ninkan waxaa u dheeraa inuu cibaadaysto sanadna wuu xajin jiray sanadna gasgu iyo jihaad iyo umuuro kale oo fiican buu islaamka u hayay ayaa wuxuu usoo diray warqadoo kuhi yaa caabid alxaramayni low absartana lacalimta anaka bilcibaadati talcabu alimaamu nawowi raximah اllah baa waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi hadal aad u cajo badan ninkan iyo qadarkiisa si aad u ogaato wuxuu yihi cabdullaahi bnu lmubaarak huwa alimaamu اlmujmacu calىa imaamatihi wa jalaalatihi fi kuli shay waladii tastanzilu الraxmatu bidikrihi wاlmagfiraةu bixubihi bal hadalkaa u fiirsada wuxuu yihi cabdullaahi bnu lmubaarak waa imaamka lagu kulansan yahay oon khilaaf ku jirin imaamnimadiisa khilaaf kuma jiro imaamu nawowi ayuu ahaa yacni khilaaf kuma jiro iyo weynankiisa shay walba arin walba markaad fiiriso isagaa imaamku ah waa ninka raxmaddu ay ku soo degta buu leeyahay dikrigiisaba marka la sheegaa ilaahay ummadda ugu naxariistaa waa ninka makfirada iyo dembi dhaafka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ummadda ugu soo dejiyo weeye marka rabbi baa gaadhsiiyey subxaanaه wa tacaala qisada ayuha alaxiba aan qeybtan ku xidhi doono waa sufyaan ibnu saciid aلthawri sufyaan aلthawri ayaa loo yaqaanaa sufyaan aلthawri isagana qiso aad u cajo badan buu leeyahay
oo maartay siyar aclaam nubala lagu soo guuriyey maca abi jacfar ilmansuur ninkii khaliifka muslimiinta dowla alcabaasiya khaliifka ka ahaa safaax baan filayaa ninkii la odhan jiray baa wax yar ka horreeyey oo taariikh yar isagoo hayay laakiin ninka ku daahay oo dhidibada u aasay dowla alcabaasiya wuxuu ahaa abi jacfar ilmansuur abi jacfar ilmansuur waxaad ogaanaysaan ayuha alaxiba waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib bal aayaddaana maskaxda ku hay qisadan sufyaan athawri markaad fiiriso sufyaan binu saciid athawri wuxuu ahaa nin caalima wuxuu ahaa taqi ilaahay ka baqa wuxuu ahaa waric nin xalaal meerasho badan maalin maalmaha ka mid a sufyaan athawri horta wuxuu dhashay 97 taariikhda hijriga markay ahayd wuxuuna dhintay 161 dadkan waa dadkii salafka ahaa waa jiilkii taabiciinta qaar badan oo ka mid a asxaabu rasuulilaahi bay la kulmeen oo ay arkeen alkhaliifa abu jacfar ilmansuur ayaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi ii soo raadiya bal waxaad ii raadisaan nin aan qaadi ka dhigo ii soo raadiya kadib baa waxaa lagu yihi qaadi waxaa u suubada oo caalim ahoo hawshaa qaban kara sufyaan binu saciid athawri igu yeedha buu yidhi wuxuu rabay inuu u dhiibo qudaadka inuu isagu qaadigu ka dhigo hortiisa markuu soo istaagay yaa abu jacfar baa yidhi waxaan rabnaa inaanu qaadi kaa dhigno fii beldati kada wa kada magaalada hebel idhaa baan kuu dhiibaynaa sufyaan waa diiday iga daa buu yidhi maya waan kuu dhiibaynaa buu yidhi iga daa buu yidhi maya buu yidhi haddii la isku celceliya warka abu jacfar ilmansuur ma kaftamayo wuxuu yidhi idan naqtulak haddaba waan ku dilaynaa haddaadan amarkayga qaadanaynin waa ku dilaynaa wuxuu yidhi ifcal maa shita waxaa rabta samee waxaa rabta adigaa maanta xora adigaa awood haysta adigaa lagu shaqaynaya adigaa adduunka xukuma waxaa rabta samee waayahay buu ihi abu jacfar wuxuu yihi wiilkii raggii dee ragga layn jiray oo hawshaa qaban jiray oo addoommihii meesha diyaarka ku ahaa buu u yeedhay yaa ghulaam tacaala liannatac wasayf waxaad ii keentaa buuhi annatac natac waxaa la yidhaahdaa waa jildun yufrashu taxta aladii yuqtalu xataa laa si aynan dhulku u wasakhoobin waa maqaar loo dhigo ee qofka la dilaayo yacni intii gogol la fidiyo maqaar ayaa saanta iyo maqaarkaasaa lagu dul fadhiisiiyaa kadib si aan dhulkuba dhiiggiisii iyo wasakdiisii iyo oan u gaadhin baa maaragtay dadku sidaasaa loo layn jiray waaga ayib addowla alamawiya iyo addowla alcabaasiya iyo waa haddii laga sheekeeyo umuur adag weeye umuur adag baad odhanaysaa yaa dareemi doontaa insha allahu tacala marka seeftana ii keen una dhiga dhulka yuuna naga wasakhaynina ha loo dhiga buuhi sufyaan bnu thawri markuu arkay ana almowta amaamahu inuu geeridu ay dhab tahay ninkaana ma kaftamaayo hawshana uu kaga dhabaynayo buu u yidhi amiir almu'miniin isug buu ku yidhi janis yarisi maxaa dhacay berri baan kuu iman doonaa buuhi anoo labisan ayaan berri kuu imaan doonaaye janis yarisi habeenku markuu mugdiyoobayna wuba cararayba ninkii waa iska boodo waa cararo kuufa kharaja min alkuufati haariban isagoo iska cararay abu jacfar ilmansuur subaxii hadduu raadiye war ninkii away waxaa la yidhi amiir almu'miniin ninkaas waa ku khayaamay xaluuna cararay wuxuu yidhi ninkii ii keena man jaaءanaa bisufyaan athawri xayan aw mayitan falahu kada wa kada ninkii sufyaan athawri ii keena isagoo dhinta ama isagoo nool waxaayo waxaasuu leeyahay sufyaanna dhulka yamaneed buu iska aaday halkaa dariiqii yamaneed isagoo waddada sii socda tuulo dhexda ku taalla buu sii maray maalmuu ka shaqaynayey meel beer ayuu maalmo ka sii shaqeeyey ninkii beerta iska lahaa baa yidhi min ayna anta yaa ghulaam xageed ka timid wiilka dhallinyarada how markaasaa wuxuu yihi min alkuufa wuxuu yihi radbu lkuufati atyabu am radbu aladii cindana ilaan beer buu raacayay ma beertan radbigu waxaa la yidhahdaa timirtu intayna timirtan weli gaadhin oyna bislaanin qaybta hore ee ay aadka u macaan tahay ayaa la yidhahda marka wuxuu yihi ma radbiga annagaa macaan mise ka kuufa wuxuu yihi ana ma dhadhaminin kiina weli maana dhadhaminin oo maxaa jira beertaa baad la joogtaaye adaa beerta subxaana allah maxaada u cunin buuhi masracadii beertanaad haysaaye wuxuu yidhi waxaad tidhi beerta ilaali waa hadalkii oo kale laakiin ma doonayo maada ii idmin buuhi inaan cuno mana rabo in caloosheeda wax haaraana ay galaan saaxib albustaan baa yaabay wuxuu yihi ninkaani armuu yahay ninkii la sheegayo sufyaan athawri ninay saaxiib yihiin buu u tegay wuxuu yihi nin sidaasoo saasoo saasaan arkay wuxuu yihi ii sheeg bal sifaadkiisa wuxuu yihi waa nin noocaasoo saa u ego intaa la ego dherarkiisoo sidaasoo fulaano
wuxuu yidhi aleelaha ninkaa tilmaamaysa waa Sufyaan athawri niyow inawadii aan qabanno kadibna aan u geyno amiir almu'miniin abu jacfar almansuur si aynu ugu guulaysano abaalmarinta la bixinayo hadday soo carareen labadoodii beertii la yimid Sufyaan ibn thawrina waa ka dhexbaxay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan meel uu ka baxa buu qofka ilaahay ka baqa u samaynaya ayib Sufyaan yaman buu aaday yaman markuu tagay buu haddana niman buu shaqo u qabtay nimankii waxay ku tuumaysteen inuu yahay ninkani tuug waxadaya ninkii boqorka meesha haystay baa loo keenay waaligii gobolka xukumi jiray wuxuu yidhi niyow miyaad xaday wuxuu yidhi laa wallaahi waxba ma xadin buu wuxuu yidhi magacaaga ii sheeg wuxuu yidhi cabdullaahi baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi qof walbo inaga inaga mida cabdullaahi baa la yidhaahdaa ilaahay baan kugu dhaariyay magacaaga dhabtaa ii sheeg wuxuu yidhi dad ilaahay ugu dhaarisay Sufyaan bin Saciid athawri baa la yidhaahdaa yaa subxaan allah wuxuu yidhi may Sufyaan baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi aabbaha ii sheeg wuxuu yidhi aabbahay cabdullaahi baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi ilaahay baan kugu dhaariyay dadka cabdullaahi waan wadanahay ii sheeg magaciisa dhabta wuxuu yidhi Sufyaan bin Saciid athawri baan ma Sufyaan athawri baa tahay ها نينكي وقرت نعم وحول أنت الذي فررت من بين يدي أبي جعفر ما وحتى نينكي أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور كسو عرري ها بيقول إلى بين مشي يقف كان وحول ما وحتى نينكي وربا إنه قضاها يحكم كودي بودي وحول ها ما وحتى نينكي جائزة وكبحية على المرين توين وكودي وحول ها وحول يا كدبنا اسكجوج نلفي عن بوها هل كان جوج ماشى ربتآد فوالله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك إله بان كل دارتي لبضيد لوود هوستودا هداد ku qarsoomeyso ku isku qarinaysa xitaa inaan ku sheegaynin halka iska joog buu yiri subhanallah Sufyaan ibn Thawri meeshii uu muddo joogay kadibna wuxuu goostay inuu Makka u aado Makka markuu aaday Abu Jacfar al-Mansuur baa maqlay inuu ninkii Makka tagay xilligii xajkana la gaaray Abu Jacfarna xajka ayuu soo aaday ciidamadiisii soo diray wuxuu sii socdo oo Sufyaan athawri xajku idin ka horeeyay qabta kadibna waxaad igu xidhan xaramka albaabkiisa igu xidha si aan ugu imaado halka aniga ayaana imaan doona anigana gacantayda ku dili doona maxaa jira ninkaasi waa ay carageliyay waxaan rabaa carada badan ee igu jirtay inay iga baxdo marka halka igu sii xira ciidankii markuu yimid Sufyaan athawri waa nin caalima xalaqaadka ayuu xaramka meesha ka bixiyaa cilmiga dadkii oo dhan oo ku hareeraysan bay nimankii ciidamada yimaadeen Sufyaan athawri bay yiraahdeen way dhawaaqeen markii la maqlay ayay dadkii oo dhan way baqeen ninka nin la raadin inuu yahay way ogaayeen kadib buu markay yiri yaa la arkay kadib baa wuxuu yiri soo istaagay kacbada xaggeedu u dhaqaaqay bal u fiirsada labada gacmood buuna kor u taagay kadibna wuxuu yiri Allahumma aqsamtu alayka alla yadkhulaha Abu Ja'far قالوا في رسالة صدح جير بكعلية كررها 3 مرات ألا يدخل مكة إلهي وحان كوغو دارتي بالرب يو وحان كوغو دارنا يعني الرب سبحانه وتعالى تدك وحا كجر الرسول كاد من أقسم على الله لأبره تد هذا إلهي كل دارتان إلهي بارنا ما أسمعين يو بين أن شيئين وحان كل دارنا يا بوري إنه سن أبو جعفر سوق لينين مقالة مكة سوق نول سبحان الله دعوة بالوفر إلهي بالصمد وفر سبحانه وتعالى isagoo soo socdana malakul mawdkii ayaa soo galay ruuxdii abi jacfar al-mansuurna halkaasaa lagu qaaday uu ku dhintay xuduudi maka markuu soo gaadhay abu jacfar al-mansuurna wuxuu soo galay magaalada maka isagoo oo ah juthatan haamida isagoo dhintay oo meyd ah maxmuula cala an-nacsh isagoo oo lagu wado geedkii lagu qaadi jiray dadka meydka yusalla calayha al-haram ruuxdaasoo loogu tukanaya xaramka ayaa isagoo meyd alla soo geliyey sidaasayna u dhacday ayuha alaxiba waxay ahaayeen qisas dhowr ah kulligoodna calaaqa wada leh dadka ay ku dhacday waxa weeye Sufyaan athawri iyo cabdullaahi ibnu mubaarak iyo maalik ibnu dinaar iyo fudayl ibnu ciyaad waa dad isku xilliye ahaa
qisada ka dhaxaysana waxay ahayd inta badan quraanka ayuha alaxiba alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wama nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamad faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun. taasi waxay darsi u tahay qof kasta oo caasi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenaya wataa dariiqadii aad alla ugu toobad keeni lahayd. ilaahay subxaanahu wa tacaala taa'ibiin haynaga dhigo, rabbi kuwa u laabteen haynaga dhaco. mar labaad waxaan u mahad celin allah subxaanahu wa tacaala, uma waxaan u mahad celin walaalaha ee tv-ga ee universal iyo walaal deeq darajo oo jooga waddanka maraykanka ee waa wakiil. dhammaantiin waa idin mahad celinayaa. wajazaakum allahu khayr. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.